qof walba waxaan ku salaamayaa mansabka iyo magaca uu halkan ku fadhiyo. waxaan rabaa sidoo kale inaan ku biiro madaxdii iga horeysay inaan soo dhaweeyo walaalkeen Xamza Warfa. Xamza ma aha marti ma aha, wadankiisu yimid hadda ka horba wadanka ku noolaa, dadkiisiba u yimid, laakiin maadaama aan muddo dheer kala maqnayn yaan mar kale ku leenahay soo dhawow walaal. dhabtiina qof aan aada ugu naaloolaa tahay, ku faano qof inaga mid ah marka uu mansab heerka ka gaaro waxa kaliya inala gudboon ee mas-uuliyaddeena saarana ayay tahay inaan ku faano una ducayno. marka aan u ducayno isagana insha allahu tacaala in xilkiisa uu ilaahay ku dhowro, mataqaanaa uu meeshaas iyo meel kasii sarraysan aan u rajayno insha allah. sidoo kale waxaan soo dhaweynayaa walaashay deeqa soo dhawow. ma sahlana gobol aqlabiyadiisa ay dad cadaana yihiin in intaad u tartanto jago muhiima sida tan aad hayso haddana lagu guulaysto. marka horena waxaan ku moodayay say wallaahi, laakiin soomaaligaaga aad bay deeqa waa mahadsan tahay. waxaan rabaa mar kale inaan aada iyo aada ugu mahadceliyo jaaliyadda Islii Business Community oo dhabtii culeysyo badan nala wadaago, naga qaado siduu walaalkay maxamed cabdikheer sheegay. dhib badanna uu ku dhaco, laakiin mar walba si geesinimo ah ugu dhabar adeygo una istaago danaha ummadda Soomaaliyeed ee wadanka ku dhaqan iyo weliba ka shishe. oo xitaa markii ay masiibooyin ka dhacaan wadanka Soomaaliya iyo mataqaanaa guud ahaanba geeska, iyaguna ka geysto wixii ay ka geysan karaan tabarucaad. in badan inaanan dhihin baa laga yaabaa. aada iyo aad baad u mahadsantihiin, waanan idinkugu mahadcelinaynaa, mar walbaba waa idinkugu mahadcelinaynaa. hadal badan ahaan ma buuxsho, intaasaan kusoo gabagabeynayaa. walaal mar kale soo dhawaada. asalaamu calaykum waraxmatullah.